ganacsada ah ayaa u baxay mid ka mid ah xeebaha si uu ugu nasto. Ninkii oo iska fadhiyo xeebta kuna celcelinaya dacooyinka galabtii la akhristo mid ka mid ah ayaa arkay muuqaalkii ugu yaabka badnaa intii uu noolaa. waxa uu arkay raah ku soconaya xawaare sare kana soo gudbaya xeebta markii uu soo gaadhay halkii ninkii fadhiyayna waxa raah dushiisii ka soo degay dibqalooc. waxaanu arkay ninkii dibqalooca oo si dhaqso ah u ordayay si uu wax u soo qaniino. xilligaas oo raah ahaa mid sii sugaya waxaanu raahii saaray dibqaloocii dusha isagoo kula noqday dhankii ay ka yimaadeen. ninkii wanaagsanaa ayaa u soo dhaqaaqay halkii dhacdadu ka dhacday si uu xog uga helo qisada safarkan la yaab kale. waxa uu goobtii ka helay wiil dhalinyaro ah oo hurda. waxaanu naftiisii kula xashaashay wuu qanaynay dibqalooc waanu laabtay kadib markuu hawshiisii ka qabsaday. laakiin waxa dhacay ayaa ka weyn waxa uu yiri. wiilkii dhalinyarada ahaa wuu soo baraarugay kadib markuu dareemay in goobta qof ka hadlayo. waxaanu ninkii weydiiyey meel uu ku tukado salaada maqrib. maxaa dhacay intaa kadib? ninkii iyo wiilkii ayaa arkay mas la dilay oo uu dhig ka socdo. maska oo lagu dilay meel u dhow halkii wiilku madaxa ku hayay markii uu hurday. waxa dilay dibqaloocii ka hor intaanu masku dilin wiilka. waxaanu ku noqday bartiisii kadib markii uu dhamaystay hawshii alla ku manaystay. ninkii ayaa isweydiiyey suuragal ma tahay in dhacdadan oo kale aniga igu dhacdo casarkan. may waxaan hubaa inay tahay karaamo u gaar ah wiilkan in dibqalooc geeri ka badbaadiyo. ninkii uu aqoonsaday magacii wiilka kadib markii uu ogaaday inuu xisaabiye ka yahay mid ka mid ah shirkadaha. maalintii xigay waxa uu ninkii aaday xaafadii uu deganaa wiilku isagoo dadkii deegaanka weydiiyey waxa uu ku yaqaanaan wiilkaasi. waxayna dhammaantood u sheegeen inuu yahay wiil ku caan ah wanaag iyo alla ka cabsi sidoo kalena u baariyay labadiisa waalid kuwaas oo xanuun fadhaysiiyey. sanadaha waxa uu ahaa mid aan hurdo seexan wax yar mooyee sababtuna ahayd dayactirka iyo ka warhaynta labadiisa waalid ilaa inta uu waagu baryay. manuu kaydsan weligii wax dhaqaale ah isagoo ku bixinayay wixii soo galba labadiisa waalid ilaa inta ay ka dhimanayeen iyagoo ugu sii duceeyeen ilaahay ka ilaaliyo dhib oo dhan khayrna ugu bedelo. ninkii waa uu ka farxay warka wanaagsan ee looga sheegay wiilka. waxaanu xasuustay xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa ما من مسلم يسبح والده عنه راديان إلا كان له بابان في الجنة. ما جرى مسلم أي لبدي سوائر هالكيين إلا هديه جرنا وحى وكل يجندا لباء الباب. قال إن كي دنبأ مالك عسينكي ونكسنا وحى وتجويلكي وحنا وصل بندقين وكشغ يمد كم إذا الشركة دي سيسقى ولا بتجبارد وأنا مشاركة. وأنا كأقل هذا ويل كده اللي يردها. إلهي بانو مهنا قيم بدن. لبدي سوالنا وحى وجود عيان حارسي يدم بداف.